بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. دمانتين وان السلام أصحابتيدا ملك السودوني ذيك جوجتان نيو ما أنت وحنا نص على أمسي عن كهليا أما عن حالك نص فرستي أرين ورتضيع أنا جاي عصب وأنا ولي جارك أن مقلين إذا كنا المغشاني إن كلام آخر أنا تسوي كده على وضن كبلجيم عاصمة دي بروكسلس habeen November kamida baa waxa ka dhacay nin walaalkay ah Liban Mustafa Xasan ayaa buuq ama dagaal halka ku dhaxmaray rag kale waan arkay rag islaayo oo ama ilkaha iska daadiya ama midiis galiya laakiin ma maqlin mana arkin dad indhaha iska saar anigu igu cusubta aniga waa arin ama dhacday igu cusub oo waligeey maqlin waxbayna hadal idinku daalin hadal waa ka dhareegsatiin oo say wax u dhaceen markaan dhacdadii arkay aniga iyo Liban dad soo wada koray baan 13 jir ilaa hadda walaal ah markaan arintii maqlay waxaan markiiba raadiyay number aan ka hayay Liban oo iga soo wici jiray Yurub baan ku daalay on 10,000 oo jeer wacay Liban dawaanin iska xanuunsanaya waa nin xubintii ama labadii indhood ee bilaadanku ka tamarinayeen Ilaahay ha u soo celiye waay waxay qaadatay in telefonkii layga qaban waayo oo dawaa bilaadan ma arki karo wuu xanuunsanaya maybe wuxuu ku jira qalitaan maybe buuqal ku jira adu waxbayna hadal idinku daalin waan waayay saan ugu celcelinay habeenada kamida isaga la soo wacay waa sheekaysanay horta waan dajiyay waxaan ku Liban 40 cisho maalintaad ku jirtay uurka hooyada boorta Ilaahay arintan qadaray in saan u dhacdo waqtigan dhacdo saacadan dhacdo gacanta xataa ku geysanaysaa uu hebel noqdo wax iska bedeli karana ma jirto cid is hor istaagi karta ma garanaysaa wuxuu Ilaahay qorayna ma jirto xaraf lagama bedeli karo ni horta qadar qornaa baa dhacay gaal iyo muslim madow iyo cadaan qof kasto maqlay oo ka cararaya madaxu qabsanaya habas ahaatee inagu hadda maxaan qaban karnaa aan ku wari Ali iyo Faarax iyo Waadhow iyo Xuseen bay ahayd waxa u jooga askar waxa u jooga maxkamad waxaad leedahay lawyer ama avocat adigii baan nool oo maad dhiman oo afkaaga ka sheegaya witness ama ma garanaysaa markhaatiyaal ama wixii ba jira oo kula jooga arinta meel nooga banaan ma jirto laakiin dhaqaale ahaan waxa jira oo nooga banaan niyo wuxuu ii sheegay halka habeen ee uu dhakhtarka seexdo inay dhowr kun oo euro ah ay ku celinaya mar kale habeenka qurahaate ee uu hooyada dhakhtarka waa dhowr kun oo euro ah ay ka dhigan tahay 2 toddobaad oo kaliya haduu hooyado waa lacag ku dhow 40,000 oo euro ah waalidkii iyo ehelkii iyo familygii uu ka dhashay ee dhacdada inta la eegay ku kor dhacday ee la ciirciiray dhacdada inta la eeg haddana ina biilka inta la eegay ka daba yimaado ayaan daro waxaan ku riniyo qayladaan waan samayn at the same time waxaan samayn in Canada anigu waan iska xil saaro waligii lacag ma ururin noloshayda ma ururin dhaqaale waxaan isku daybilnaa dadna la kaashado ay iga caawiyaan dhaxdana waanu xiran wuxuu Ilaahay iga soo kulansiiyana waan kugu soo celin halkaas markay arintu noo marayso ayaan traffic ka jaray marka idinka asxaabtaydi horta Ilaahay uu sukan wada eegay qofka xanuunsan Ilaahay caafimaad uma waay isaga caafimaad ka bixiya uma waay qasnadihiisa ama se qasnadaha Ilaahay wax ay ka dhimayso
caafimaad inuu qof siiyo ma jirto keena cagaha la looma waayin in caga la siiyo waa kii abwaankii lahaa ma ogtahay curyaankaba caga looma waayin caynkaa wax loo yidhi kuwa cararayee ladan inay ku cimri qaataan waxba inaan hadal idinku daalin waa la sukan wadaagaya dhammaanteen baa la sukan wadaagaya sidaynu u maarayno dhacdooyinka caynkaas markay dhacaan sidaynu u maarayno ilaahay wuxuu adduunkan u abuuray waa goobaab saasoo goobaab u tahay waxa ku dhex jiraana sidaasuu goobaab u yahay مثلا bulshadu markay isku naxariisato ee keeda dhibaataysan gargaarto ee keeda wax qaba caawiso ee keeda duqoobay ama sadada ah isgarab istaagto ee keeda dhacdo ama se masiibo laga ducaystay madaxa kaga dhaco isgarab istaagto markay dhaqaalo aruurin ugu kacdo marka ay hiil iyo hooba dadkeeda la garab joogsato ilaahayna wuxuu ugu abaal gudaa inuu raxmadiisa ama roobkiisa cirka ka keeno bal fiirso adiga bixinaya wad gargaaraysaa inagoo isku duuban baa gacmaha is qabsanayna qof inaga naga mid bulshada kamida oo wax noqday ayaynu gargaaraynaa ilaahay wuxuu noogu abaal gudayaa inuu cirka raxmad ka keeno roobkiisa cirka roobkii ka yimid bal fiiriya adiga yaa bixiyay waxa ku xiran inaad bixiso ama se aan isku calool fayoobaano oo is caawino waxa uu ilaahay ku xiray oo isku xiran yihiin inuu cirka roob ka soo doo waa kow laba cirka roobkii ka soo daay dhulka markuu galo waxa soo baxay dhirtu markay soo baxdo dhirta laftirkeedu roobka ku xiranta ma soo baxayso roob la'aan bal la socya dhirta xoolaha daaqaya xooluhu ma tamarinayaan oo ma barwaaqoobayaan oo ma dhaldhalayaan oo ma caanaysanayaan dhir la'aan xoolihii marka ay barwaaqoobaan caanihii ay daadiyaan qofkii lacagta bixiyay hadda waa kay ka bilaabatay ciyaartu say ka bilaabatay kii bay ku soo noqonaysaa qofkii bixiyay ee caawimaadda sameeyay ee u gurmaday walaalkiisii dhibaataysnaa ayaa wuxuu ka faa'iideysanayaa xoolihii caanihii iyo dhirtii saddexdii buu ka faa'iideysanaya waa shilinkii uu bixiyay muxuu u dhalay in cirka roob ka yimaado inuu dhulka galo inay dhirtii soo baxdo inay xoolihii daaqdo inuu isagu xoolihii iyo dhirtiiba ka faa'iideysto saas adduunku isugu xidhanta bulshada aynu ku dhex nool nahay maanta ee qurbaha waad aragteen caddaankaas maanta ku dhex nool nahay waxba yeena diin haysan laakiin waxa inagu dhaamaan isgargaarka intaa leeg mid buu kansar ku dhacaya waxa uu wada kacaya bulshadii oo dhan mid kansar lahaa iyo midaan lahayn intuu way wada kacayaan muxuu ilaahay uga dhigay roobku kamaba istaagaba dhulkooda walaalahayo ninkaas waa noo baahan yahay gurmad buu baahan yahay gurmad ma taqaanaa kelmadda gurmad ilaahay baan idinku dhaarshay ma taqaanaa kelmadda gurmad ninkaas gurmad buu u baahan yahay dhaqaale gurmad buu u baahan yahay dhaqaale liibaan hadal maanta uma baahno faarax bay ahayd iyo cusmaan bay ahayd iyo yoonis bay ahayd waqtigeedii ma ilaahay baan idinku dhaarshay jaabka in gacanta la geliyo oo ninka loo ku coobaayay hadalkan idin leeyahay walaalahayo iyaan la dheelsan wallahi hadalkan idin leeyahay waa hadalan isaga la sheekaystay oo wax badan aan ka ogahay ninkaas dhakhtarka Belgium haduu wax u qaban waayo waxa lagu tala jiraa in dhakhtarra kale la geeyo ninkaas in bal wax loo qabto in lala carara la rabaa in waxa la rabaa dhakhtarku ka wanaagsan yahay oo wax u qaban karayo ilaahay ba dawada haye inaga dadaalkeena ilaahay ba dawada haye inagu dawo ma hayno laakiin dadaalkeena ina qabno walaalahayo arintan waqtigu idin kaga lumay waxa u jooga askar waxa u jooga muxuu ahaa justice-kii ama justice-kii adduunka korkiisa ee bilaadanku sameynayeen oo caddaankaas iyo European ku sameynayaan waxa u sii jooga justice-kii ama justice-kii ilaaha khaliqeen waxa ka dhuumanba inuu waa dhowrahay inuu faarax ahaa ilaahay si fiican u garanay kaasna waa u dambeeya ninkii dhig islaameed galay isaga u taala inaan waqtiga ku lumno inaan waqtigeena ku lumin waxaas ma wax ka muhiimsan baa jira war ninkaas
ورنينكاس ونودح ديعية وديعية قف كست أو كوين أما كان جاري أن حسك وحبك قبين ومسؤول واضح حسوستان لبض يكون إيا لبي طبانكي waxaa ka dhacday dhacdo baa ka dhacday dhulkeena Soomaaliyeed dhul kamida ayuu abaar ka dhacday abaar baa ka dhacday hooyo waxa la soo sawiray meeyit ah oo dhimatay oo ilmaheedii uu wali caana ka eegayo uu jaqay naaskeeda ayuu ni photograph soo sawiray sawirkii uu soo dhigay adduunka oo dhan buu sawirka qarxiyay 2012 shalay toole 4 sano kor ninkii xashka tujinay bay dhacday sarkaysay microphone ku qabsaday xashka dhexdiisa wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay in uunan ilaahay naga qorayn inaan inaguna dheragno oon daadino cuntada ummad muslimana sano baabaan ninkay ehelnimo mu eegin islaanta mu garanin ilmaha yar mu garanin bas dhacdada ka naxisay wuxuuna og yahay dhamaanteen inaan mas'uul nahay oo ilaahay mas'uul naga dhigay ayuu garanaya marka dhamaanteen walaalaha mas'uul bana wallahi waana la xisaabtamay oo billahi waana la xisaabtamay ninkaas hadii uu nagu dhex dayacmo gebigeena ka mas'uula wax ay isdhaanto ma jirto kii naburka u geystay iyo kii daawaday ilaa u dayacmay waxa ay isdhaamaan ma jirto ka u gurman waayay kamidida ku galiya iyo kaad agtiisa ku dhiig baxdid waa isku mid waxa isdhaamaan وكل جرمان كري نكاس مانت بلجيم وحكون نقضي شن بقول أوقف أو مانت بلجيم كنول أما يوروب كنول وشن بقول أوقف كلي هاتي شن بقول أوقف وكلي هاتي فيري أما إيك لبعتهم كون كبدن ببلجيم كنول بلجيم هولندا كنا هولن أنت إن كبدن باكوسين نول هولن فرانسيسكي هذا حاجة جرمالكي حاجة إنجليزكي حاجة سويسرلاند adduunkii European-kii oo dhan baa intaas jooga ummadii oo dhan baa ka buuxda Soomaali ha noqdaan Afar ha noqdaan Oromo ha noqdaan ummadii muslimka oo dhan gaar ahaan waliba ummadii Soomaaliyeed gaar ahaan baxalka degan toddobaadkii ugu horeysay arintan dhacday hadii dhexda loo xidhan lahaa lama waayeen 500 oo qof oo kaliya haatay oo min 100 euro bixis 100 euro 500 qof waa 500 personnes و 500 people أو من بقول يورو بحس 100 يورو و كنتم كون أو يورو كدبنا قيلة دان سمي ورياضهن ورني كان لوجر مديرة ما تحردي سؤالنا عم بيقول عليه لكن وقت محنا قال له مي فرح بهيدي يونس بهيدي ودور بهيدي عبادة هيد عسكري متي أو ما قرنا يساي إن أمته برنت لابا محكمة متي oo dadkan aad tirinaysid inta maxkamad soo saartay ma xukumaysid saddex waxaan aad tirinaysid afkaaga ka sheegaysid arinta liibaan haysataa waxba kama qabanayso liibaan avocado leeyahay soo mar rabtid in dambiilihii la qabto avocado lacagtiisa bixi lawyer-ka lacagtiisa bixi jaabada gacanta war liibaan hoob u baahan yahay war dhagamanigu yaalan liibaan hoob u baahan yahay waxba isma dhaamaan ninka maanta nabarka geystay ان كيك اما كدنبيي كي اما لا سocday كي اما ku soo magaranaysaay ان ku soo riixayeen sameeyaan كي اما waxaas oo dhan isku soo wada keen iyaku agtiisa isagoo arkaya ku dhiig baxay ee uu ku silcay waxba isma dhaaman ninka dhalinyarada ah in guursan ee maanta magaranaysaay in da'di ugu fiicneed maraya inaan wax la qabano war wallahi wa billahi wa tallahi wa waajib nasar war wallahi ilaahi wa sukan agaya war wallahi ilaahay uu suuka eegaya ilaahay nina abuuray uu suukan eegaya war ninka loo gumo war jaynaha hadda joogto xataa sacuudi arabiya hadda joogto war aasiya hadda joogto haddaad America joogto haddaad Afrika hadda joogto haddaad dhulkeeni joogto haddii aad Yurub joogto haddii aad Belgiumka laftarkiisa joogto haddii aad Australia joogto ninkaas lacag waa u soo diri kartaa halkan ugu soo dir numberkan ugu soo dir anigu kulli horta waa leegaga fiican yahay in aaladaha waa leegaga fiican numberka kuma soo qori karo screenka afkaan ka sheegaya qofkii intuu fiidiyaha download gareeya numberkan afka ka sheegay ma garanaysaay number ahaan ugu soo qoro idhaama aaladan qofkii idhaama ku soo qori karo oo
adiguna baraadarkaygiyo waa lagu baahan yahay war ninkaas dhamaanteen buu noo baahan yahay qofkii ku soo qori kara nambarka ummadda u fududeyn kara ku soo qoro aniguna afkaan ka sheegaya sidan ku soo qoran horta kow magaciisa aad ku soo qoraysaa liibaan mustafa xasan waan idinku celinayaa liibaan mustafa xasan nambarkaad ku qoraysaan English baan idinku sheegi Soomaali baan idinku sheegi Faransiisna waan idinku sheegi English ahaan wuxuu noqonayaa 003246567258 waan idinku celin 003246567258 Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa eber 326567258 eber 8 waan idinku celin waa eber 326567258 eber 8 Francis baan idinku sheegi waa 0032 46 56 72 508 waan idinku celin waa 0032 46 56 72 508 walaalahay wakaa nambarku magacu wakaas waxaan idinkaga tagayaa hadalkay ku soo xidhaya war ninkaas waa noo baahan yahay maanta ifka inta la joogay aad neefsanaysid sanka neef ka qaadanayso baad wax qaban kartaa waxna lagu qaban karaa liibaan maanta noo baahan yahay bari toolo inooma baahno liibaan maanta waxu qaban karnaa bari toolo waxba uma qaban karno intaad sanka ka neefsanayso baad liibaan waxu qaban kartaa qof kalena waxu qaban kartaa naftaada waxu qaban kartaa qof kalena waxu qaban kartaa war ninkaas walaalahayo yaan la dheelsan wallahi yaan la dheelsan arinta taalaay waa arrin weyn waa arrin dhaqaale u baahan ummadii amadsi ehelkii liibaan uu ka dhashay ee arinta inta la eeg madaxa kaga dhacday war wallahi billahi tallaahi waxa ayaan darra in qarashkaasina madaxa kaga dhaco wallahi waa ayaan darro maanta ka kota ka bixin kara ka boqol ka bixin kara ka labada boqol bixin kara ka saddexda boqol bixin kara ka afarta boqol bixin kara qof waliba wuxuu bixin karo meesha uu dunida ka joogo buu ka soo diri karaa meesha uu dunida ka joogo buu ka soo diri karaa war walaalahay ninka loo wada kaco war aakhir waxba la isku maaha war adduunka wax la isku yahay nin dhalinyaro ah oo noloshiisa inta ka dambayso oo dhan gacanta la qaban doona hadii ninka loo gurmo waayo gacanta la qaban doona wallahi gacanta la qaban doona waan idin baraya ilaahi idin abuuray baan idin ku dhaarshay war yaan laga hagrin war shilinkiina ka hagrin shilinkiina qofka idin baahna ka hagrin kanaday doonta ana isku xil saaray noloshayda lacag ma ururin kuma tala jirin inaan ururiyo laakiin dhaxdaan u xidhanaya ilaahayna ha igu asturo reer kanadana waxaan weydiisanayaa inay iga caawiyaan ay iga taageeraan ururinta lacagtaas iyo dhaqaale ururinta ninka dhalinyarada inaan dhaxda u xidhanno inaan ka ciyaarno ma garanaysaay meel meeshii nolola baahna inaan ka soo toosno $100 wax alle iyo wax ay nala tahay ma jirto $100 eed u dirta liibaan baa waxay badbaadin kartaa noloshiisa badbaadin kartaa indhihiisa badbaadin kartaa indhihiisa inuu dib wax u arko iyo badbaadin kartaa $100 jabadaada ka bixis fiidiyahan ma aha fiidiyihii u dambeeyay waa fiidiyihii u horreeyay soo duuba laakiin ma aha kii u dambeeyay hadba xaaladdu xaggay marto haddii dhakhtarka laga qaado dhakhtar kale la geeyo oo qarash kala soo kordho kii soo duubayaanahay ee idin sheegi doona baanahay reer Kanada ana isku xil saaray hawshaana galaya dad ila galana raadsanay ilaahayna igu asturo waxaan idinka codsanaa meel kasto joogtaan inaad iska abaabushaan idinkuna is abaabula saaxiibadiin waca nambarka siiya liibaan mustafa xasan ku qora ku dhaha gacantiisa ugu dira dad buu haystaa u soo qaadaya war walaalahayo ninkaas in nabarka loo geysto waxa ka daran inuu nagu dhex dayacmo nabar in loo geysto waxa ka sii daran oo dhagar kala ah inuu ninkaas nagu dhex dayacmo waa dhagar labaad
ilaahay haddii la yaqaano oo ilaahay laga cabsanayo oo ummad muslimiin la yahay oo la isku naxayo oo xabad naxariisa adduunyada korkeeda ay taalo war ilaahay baan idinku dhaarshay ninka loo sorko waan ka baxay igana raali noqdo haddaan ku dheeraaday ninkaas walaalahayo hala garab joogsado ninkaasi maanta noo baahan yahay please hala garab joogsado please waa idin baraya hala garab joogsado please waa idin baraya waxaan waa masiibada waa laga ducaystaa masiiba ninka ku dhacday masiibadana waa laga ducaystaa brother adoo baawur wata ayuu shil waalan oo dhabarka ka jabto kugu dhici karaa falciyaadu billah meel alli iyo meel jirta masiibo adoo tareen la socdo rogman karaa tareenku adoo diyaarad la socday baabi'i kartaa meel alli iyo meel masiibadu jirta ma jirto maanta liibaan baan u qaylinayna laakiin bari qof kale aan u qaylin doonaa ilaahay baa qofkay noqon doonto ilaahay baa war $10 ha noqoto $100 ha noqoto $50 ha noqoto $80 ha noqoto $200 ha noqoto war waxaad dili karteed ku awooda ninka u dir please waa idin baraya ninka dhexda loo xidho ninkaas wuxuu u baahan yahay waa dhaqaale nacnac iyo qarafa dhug uma baahna farax bay ahayd cali bay ahayd uma baahno wuxuu u baahan yahay in dhexda la xidho oo mas'uuliyad la isa saaro ayuu u baahan yahay aad baan idin soo salaamaya dhamaantiin waxaan idin leeyahay habeen iyo dharaar wanaagsan isagana waxaan ilaahay uga barayaa dhawaan baan u tagi doonaa oo Belgium ugu tagi doonaa inaan labadeeda indhood ku arko liibaan oo sidiisii hore saan ku aqaanay liibaan oo yaan ilaahay uga barayaa inaan dib u arko ilaahay baan uga baryayaa inaan dib u arko liibaankii aan aqaanay oo sidiisii ilaahay baan uga baryayaa waan u tagi doonaa dhawaan insha Allah ta'ala maraan dheerin insha Allah ta'ala dhexda inaan u xirano u sarakacno war naf إلا بدباديو والله بالله تالله إلهي حقي سوا وحوين والله بان الله ما إلهي حقي سوا وحوين النف حبدنا فإنا بدباديس إلهي حقي سوا وحوين وإذا بريا آخرنا إلهي هيدين صاروا مقرنسا ميزانك حسناتك إلهي مقرنسا إن أجري حسنات هيدي كسيو لكني كاسوا النوبهية ومباهنو قيب قونية ومباهنو فرح يونس يا علي وما باهنا إن يرأو جونية أفر قف لعكتي ذو ما باهنا شن قف لعكتي ذو ما باهنا ورمان تيم بوباهية نكاس قرش كسوقي والله قرش لحسابي كرما ورياضة والإلهي الله يعبسه فردق على قاكم فردق والله عريته هو very serious هالله سركعه وإذا بريا هالله سركعه دحذا هالله حده هالله يسوى قبصده هرت كندا عنوان الباب كسان قراعية الباب عن ريبي مجرد الباب كستان قراعية وان إذن بريا إذن كنا إلى الشقية إن يوروب ككعة إن أستراليا ككعة والله بالله تالله وندن ليرى نولشي اسمه حبد بادين إلهي بان إذن كدار شيء إلهي نحن لقرب قالوا نكاس مانتا إلهي شمبر ملايكو هاي نوغا وضا ديگا دمانتين فردقا هوا وضا كعنا aad baad u mahadsantiin waxaad ku soo salaamaya salaanta islaamka meel ka soo joogtaan aad baad idin jeclahay aad baad soo salaamaya 6 7 2 5 eber 8 Francis baan idin ku sheegay waa 00 32 46 56 72 5 0 08 waan idin ku celin waa 00 32 46 56 72 508 walaalahay wakaa numberku magacu wakaas waxaan idinkaga tagayaa hadalkay ku soo xidhaya war ninkaas waa noo baahan yahay maanta ifka inta la joogay aad neefsanaysid sanka neefka qaadanayso baad wax qaban kartaa waxna lagu qaban karaa liibaan maanta noo baahan yahay bari toolo inooma baahno liibaan maanta waxu qaban karnaa bari toolo waxba uma qaban karno intaad sanka ka neefsanayso baad liibaan waxu qaban kartaa qof kalena waxu qaban kartaa naftaada waxu qaban kartaa qof kalena waxu qaban kartaa war ninkaas walaalahayo yaan la dheelsan wallahi yaan la dheelsan arinta taalaay waa arrin weyn waa arrin dhaqaale u baahan ummadii amadsi ehelkii liibaan uu ka dhashay ee arinta inta la eeg madaxa kaga dhacday war wallahi billahi tallaahi waxa ayaan darra in qarashkaasina madaxa kaga dhaco wallahi waa ayaan darro maanta ka kota ka bixin kara ka 100 ka bixin kara ka 200 bixin kara ka 300 bixin kara ka 400 bixin kara qof waliba wuxuu bixin karo meesha uu dunida ka joogo buu ka soo diri karaa
meesha uu dunida ka joogo buu ka soo diri karaa war walaalahay ninka loo wada kaco walaalahay ninka loo wada kaco war aakhir waxba la isku maaha war adduunka wax la isku yahay adduunka wax la isku yahay nin dhalinyaro ah oo noloshiisa inta ka dambayso oo dhan gacanta la qaban doona haddii ninka loo gurmo waayo gacanta la qaban doona wallahi gacanta la qaban doona waan idin baryayaa ilaahi idin abuuray baan idin ku dhaarshay war yaan laga hagrin war shilinkiina ka hagrin shilinkiina qofka idin baahna ka hagrin kanaday doonta ana isku xil saaray noloshayda lacag ma ururin kuma tala jirin inaan ururiyo laakiin dhaxdaan u xidhanaya ilaahayna ha igu asturo reer kanadana waxaan weydiisanayaa inay iga caawiyaan ay iga taageeraan ururinta lacagtaas iyo dhaqaale ururinta ninka dhalinyarada inaan dhaxda u xidhanno inaan ka ciyaarno ma garanaysaay meel meeshii nolola baahna inaan ka soo toosno $100 wax alle iyo wax ay nala tahay ma jirto $100 eed u dirta liibaan baa waxay badbaadin kartaa noloshiisa badbaadin kartaa indhihiisa badbaadin kartaa indhihiisa inuu dib wax u arko iyo badbaadin kartaa $100 jabadaada ka bixis fiidiyahan ma aha fiidiyihii u dambeeyay waa fiidiyihii u horreeyeen soo duuba laakiin ma aha kii u dambeeyay hadba xaaladdu xaggay marto haddii dhakhtarka laga qaado dhakhtar kale la geeyo oo qarash kala soo kordho kii soo duubayaanahay ee idiin sheegi doona baanahay reer kanada anaa isku xil saaray hawshaana galaya dad ila galana raadsanay ilaahayna igu asturo waxaan idinka codsanayaa meel kastoo joogtaan inaad iska abaabushaan idinkuna is abaabula saaxiibadiin waca nambarka siiya liibaan mustafa xasan ku qora ku dhaha gacantiisa ugu dira dad buu haystaa u soo qaadaya war walaalahayo ninkaas in nabarka loo geysto waxaa ka daran inuu nagu dhex dayacmo nabar in loo geysto waxaa ka sii daran oo dhagar kala ah inuu ninkaas nagu dhex dayacmo waa dhagar labaad ilaahay haddii la yaqaano oo ilaahay laga cabsanayo oo ummad muslima la yahay oo la isku naxayo oo xabad naxariisa adduunyada korkeeda ay taallo war ilaahay baan idinku dhaarshay ninkaa loo sorko waan ka baxay igana raali noqdo haddaan ku dheeraaday ninkaas niyow qayladhaan waan samayn at the same time waxaan samayn in Canada anigu waan iska xil saaro weligii lacag ma ururin noloshayda ma ururin dhaqaale waxaan isku daybilinaa dadna la kaashado ay iga caawiyaan dhaxdana waanu xidhan wuxuu ilaahay iga soo kulansiiyana waan kugu soo raali halkaas markay arrintu noo marayso ayaan taraafika ka jaray marka idinka asxaabtaydii horta ilaahay uu sukan wada eegaya qofka xanuunsan ilaahay caafimaad uma waayin isaga caafimaad ka bixiya uma waayin qasnadihiisa ama se qasnadaha ilaahay wax ay ka dhimayso caafimaad inuu qof siiyo ma jirto keena cagaha looma waayin in caga la siiyo waa kii abwaankii lahaa ma ogtahay curyaankaba caga looma waayina caynkaa wax loo yidhi kuwa cararayee ladan inay ku cimri qaataan waxba inaan hadal idinku daalin waa la sukan wada eegaya dhammaanteen baa la sukan wada eegaya sidaynu u maarayno dhacdooyinka caynkaas markay dhacaan sidaynu u maarayno ilaahay wuxuu adduunkan uu abuuray waa goobaab saasoo goobaab u tahay waxa ku dhex jiraana sidaasoo goobaab u yahay مثلا bulshadu markay isku naxariisato ee keeda dhibaataysan gargaarto ee keeda wax qaba caawiso ee keeda duqoobay ama sadada ah isgarab istaagto ee keeda dhacdo ama se masiibo laga ducaystay madaxa kaga dhaco isgarab istaagto markay dhaqaalo aruurin ugu kacdo marka ay hiil iyo hooba dadkeeda la garab joogsato ilaahayna wuxuu ugu abaal gudaa inuu raxmadiisa ama roobkiisa cirka ka keeno bal fiirso adiga bixinaya wad gargaaraysa inagoo isku duuban baa gacmaha is qabsanayna qof inaga naga mid bulshada kamida oo wax noqday ayaynu gargaarayna ilaahay wuxuu noogu abaal gudayaa inuu cirka raxmad ka keeno roobkiisa
cirka roobkii ka yimid bal fiiriya adiga yaa bixiyey waxa ku xidhan inaad bixiso ama se aan isku calool fayoobaano oo iscaawino waxa uu ilaahay ku xidhay oo isku xidhan yihiin inuu cirka roob ka soo doo waa kow laba cirka roobkii ka soo da'ay dhulka markuu galo waxa soo baxay dhirtu markay soo baxdo dhirta laftirkeedu roobka ku xidhanta ma soo baxayso roob la'aan bal la socya dhirta xoolaha daaqaya xooluhu ma tamarinayaan oo ma barwaaqoobayaan oo ma dhaldhalayaan oo ma caanaysanayaan dhir la'aan xoolihii marka ay barwaaqoobaan caanihii ay daadiyaan qofkii lacagta bixiyey hadda waa kay ka bilaabatay ciyaartu say ka bilaabatay kii bay ku soo noqonaysaa qofkii bixiyey ee caawimaadda sameeyey ee u gurmaday walaalkiisii dhibaataysnaa ayaa wuxuu ka faa'iidaysanayaa xoolihii caanihii iyo dhirtii saddexdii buu ka faa'iidaysanaya waa shilinkii uu bixiyey muxuu u dhalay in cirka roob ka yimaado inuu dhulka galo inay dhirtii soo baxdo inay xoolihii daaqdo inuu isagu xoolihii iyo dhirtiiba ka faa'iidaysto saasay adduunku isugu xidhanta bulshada aynu ku dhex nool nahay maanta ee qurbaha waad aragteen بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم دمانتين وان السلام أصحابتيدا ملك الصدوني ذيك جوكتان نيو ما أنت وحنو سعدا أما سي عن كهاليا أما عن حالك نصو فرستي أرين ورتضيع أنا جاي عصب وأنا ولي جارك أن مقلين إذا كنا المغشاني إن كلام أغان أنا تسوي حكا دعدي وضن كبلجم عاصمة ديس بروكسلس habeen November kamida baa waxa ka dhacay nin walaalkay ah Liban Mustafa Xasan ayaa buuq ama dagaal halka ku dhex maray rag kale dee waan arkay rag islaayo oo dee ama ilkaha iska daadiya ama midiis geliya laakiin ma maqlin mana arkin dad indhaha iska saar anigu igu cusubta aniga waa arrin ama dhacday igu cusub oo weligay maqlin waxbayna hadal idinku daalin hadal waa ka dhareegsatihiin oo say wax u dhaceen markaan dhacdadii arkay aniga iyo Liban dad soo wada koray baan 13 jir ilaa hadda walaal ah markaan arrintii maqlay waxaan markiiba raadiyey number aan ka hayay Liban oo iga soo wici jiray Yurub baan ku daalay on 10,000 oo jeer wacay Liban dawaanin iska xanuunsanaya waa nin xubintii ama labadii indhood ee bilaadanku ka tamarinayeen ilaahay ha u soo celiye waay waxay qaadatay in telefonkii layga qaban waayo oo dawaa bilaadan ma arki karo wuu xanuunsanaya maybe wuxuu ku jira qalitaan maybe buuqal ku jira adu waxbayna hadal idinku daalin waan waayay saan ugu celcelinay habeenada kamida isaga la soo wacay waa sheekaysanay horta waan dajiyay waxaan ku Liban 40 cisho maalintaad ku jirtay uurka hooyada boorta ilaahay arrintan qadaray in saan u dhacdo waqtigan dhacdo saacadan dhacdo gacanta xataa ku geysanaysaa uu hebel noqdo wax iska bedeli karana ma jirto cid is hor istaagi karta ma garanaysaa wuxuu ilaahay qorayna ma jirto xaraf lagama bedeli karo nin horta qadar qornaa baa dhacay gaal iyo muslim madow iyo cadaan qof kasto maqlay oo ka cararaya madaxu qabsanaya habas ahaatee inagu hadda maxaan qaban karnaa aan ku wiri cali iyo faarax iyo waadhoor iyo xuseen bay ahayd waxa u jooga askar waxa u jooga maxkamad waxaad leedahay lawyer ama avocat adigii baan nool oo meed dhiman oo afkaaga ka sheegaya witness ama ma garanaysaa markhaatiyaal ama wixii ba jira oo kula jooga arrinta meel nooga banaan ma jirto laakiin dhaqaale ahaan maxaa jira oo nooga banaan niyo wuxuu ii sheegay halka habeen ee uu dhakhtarka seexdo inay dhowr kun oo euro ah tahay aydi ku celinaya mar kale habeenka qurahaate ee uu hooyada dhakhtarka waa dhowr kun oo euro ah
waxay ka dhigan tahay 2 toddobaad oo kaliya haduu hoydo waa lacag ku dhow 40,000 oo euro ah waalidkii iyo ehelkii iyo familygii uu ka dhashay ee dhacdada inta la eegay ku kor dhacday ee la ciirciiray dhacdada inta la eeg haddana ina biilka inta la eegay ka daba yimaado waa ayaan daro waxaan ku cadaankaas maanta ku dhex noolahay waxba yeena diin haysan laakiin waxa inagu dhaamaan isgargaarka inta la eeg mid buu kansar ku dhacaya waxa uu wada kacaya bulshadii oo dhan mid kansar lahaa iyo mid aan lahayn intuu way wada kacayaan muxuu ilaahay uga dhigay roobku kamaba istaagaba dhulkooda walaalahayo ninkaas waa noo baahan yahay gurmad buu baahan yahay gurmad ma taqaanaa kelmadda gurmad ilaahay baan idinku dhaarshay ma taqaanaa kelmadda gurmad ninkaas gurmad buu u baahan yahay dhaqaale gurmad buu u baahan yahay dhaqaale liibaan hadal maanta uma baahno faarax bay ahayd iyo cusmaan bay ahayd iyo yoonis bay ahayd waqtigeedii ma ilaahay baan idinku dhaarshay jaabka in gacanta la galiyo oo ninka loo ku baahan yahay hadalkan idin leeyahay walaalahayo iyaan la dheelsan wallahi hadalkan idin leeyahay waa hadalan isaga la sheekaystay oo wax badan aan ka ogahay ninkaas dhakhtarka Belgium haduu wax u qaban waayo waxa lagu tala jiraa in dhakhtarra kale la geeyo ninkaas in bal wax loo qabto in lala carara la rabaa in waxa la rabaa dhakhtarku ka wanaagsan yahay oo wax u qaban karayo ilaahay ba dawada hayay inaga dadaalkeena ilaahay ba dawada hayay inagu dawo ma hayno laakiin dadaalkeena inaan qabno walaalahayo arintan waqtigu idin kaga lumay waxa u jooga askar waxa u jooga muxuu ahaa justice-kii ama justice-kii adduunka korkiisa ee bilaadanku sameynayeen oo cadaankaas iyo European ku sameynayaan waxa u sii jooga justice-kii ama justice-kii ilaaha khaliqeen waxa ka dhuumanba inuu waa dhowrahay inuu faarax ahaa ilaahay si fiican buu garanaya kaasna waa u dambeeya ninkii dhig islaameed galay isaga u taala inaan waqtiga ku lumno inaan waqtigeena ku lumin waxaas ma wax ka muhiimsan baa jira war ninkaas waa nuu dhex dayacaya waa dayacaya qof kaste oo ka weyn ama qaangaaray oon xiska waxba ka qabin waa mas'uul waad xasuusataan 2012 waxa ka dhacday dhacdo baa ka dhacday dhulkeena Soomaaliyeed dhul kamida ayuu abaar ka dhacday abaar baa ka dhacday hooyo waxa la soo sawiray meeyit ah oo dhimatay oo ilmaheedii uu wali caana ka eegayo uu jaqay naaskeeda ayuu ni photograph soo sawiray sawirkii uu soo dhigay adduunka oo dhan buu sawirka qarxiyay 2012 shalay toole 4 sano kor ninkii xashka tujinay bay dhacday sarkaysay microphone ku qabsaday xashka dhexdiisa wuxuu yiri wallahi baan ku dhaartay in uunan ilaahay naga qorayn inaan inaguna dheragno oon daadino cuntada ummad muslimana sano baabaan ninkay ehelnimo mu eegin islaanta mu garanin ilmaha yar mu garanin bas dhacdada ka naxisay wuxuuna og yahay dhamaanteen inaan mas'uul nahay oo ilaahay mas'uul naga dhigay ayuu garanaya marka dhamaanteen walaalahay mas'uul bana wallahi waan la xisaabtamay oo billahi waan la xisaabtamay ninkaas hadii uu nagu dhex dayacmo gebigeena ka mas'uula wax ay isdhaanto ma jirto kii naburka u geystay iyo kii daawaday ilaa u dayacmay waxa ay isdhaamaan ma jirto ka u gurman waayay kamidida ku galiya iyo kaad agtiisa ku dhiig baxdid waa isku mid waxa isdhaamaan oo kula gurman karay ninkaas maanta Belgium wax ku noqday 500 oo qof oo maanta Belgium ku nool ama Europe ku nool waa 500 oo qof kaliya hadi 500 oo qof oo kaliya hadi fiiri ama eeg 20 kun ka badan baa Belgium ku nool Belgium Holland baa ku naban Holland inta in ka badan baa ku sii nool Holland Faransiiskii hadana xagan Jarmalkii xagan Ingiriiskii xagan Switzerland adduunkii Europeankii oo dhan baa intaas jooga ummadii oo dhan baa ka buuxdo Soomaali ha noqdaan Afar ha noqdaan Oromo ha noqdaan ummadii muslimka oo dhan gaar ahaan waliba ummadii Soomaaliyeed gaar ahaan baxalka degan toddobaadkii ugu horeysay arintan dhacday hadii dhexda loo xidhan lahaa lama waayeen 500 oo qof oo kaliya hadi oo min 100 euro bixis 100 euro
shan boqol oo qof waa 500 person waa 500 people oo min boqol euro bixis 100 euro waa 50,000 oo euro ah kadibna qayla dhaan sameeyo wariyadeen warninkan loo gurmaday maanta xaaladiisu dhinacan buu dhicilay laakiin waqtiga muxuu naga lumay faarax bay ahayd iyo yoonis bay ahayd waa dhowr bay ahayd cibaad ahayd askari ma tihid oo ma garanaysaa in uma tababarnid laba maxkamad ma tihid oo dadkan aad tirinaysid inta maxkamad soo saartay ma xukumaysid saddex waxaan aad tirinaysid afkaaga ka sheegaysid arinta liibaan haysataa waxba kama qabanayso liibaan avocado leeyahay soo mar rabtid in dambiilihii la qabto avocado lacagtiisi bixi lawyer lacagtiisi bixi jaabada gacanta war liibaan hoob u baahan yahay war dhagamanigu yaalan liibaan hoob u baahan yahay waxba isma dhaamaan ninka maanta nabarka geystay kii ka ama ka dambeeyay kii ama la socday kii ama ku soo ma garanaysaa ku soo riixay inay sameeyaan kii ama waxaas oo dhan isku soo wada keen iyaku agtiisa isagoo arkaya ku dhiig baxay ee uu ku silcay waxba isma dhaamaan ninka dhalinyarada ah in guursan ee maanta ma garanaysaa da'di ugu fiicneed maraya inaan wax la qabano war wallahi wa billahi wa tallahi wa waajib nasar war wallahi ilaahay waa sukan eegaya war wallahi ilaahay waa sukan eegaya ilaahay waa sukan eegaya ilaahay nina abuuray uu sukan eegaya war ninka loo gudbo war jaynaha hadda joogto xataa sacuudi arabiya hadda joogto war aasiya hadda joogto haddaad America joogto haddaad Africa joogto Africa haddaad joogto haddaad dhulkeennii joogto haddii aad Yurub joogto haddii aad Belgiumka laftarkiisa joogto haddii aad Australia joogto ninkaas lacag waa u soo diri kartaa halkan ugu soo dir numberkan ugu soo dir anigu kulli horta waa leegaga fiican yahay aaladaha waa leegaga fiican numberka kuma soo qori karo screenka afkaan ka sheegaya qofkii intuu fiidiyaha download gareeya numberkan afka ka sheegay ma garanaysaa number ahaan ugu soo qoro idhaama aaladan qofkii idhaama ku soo qori karo oo adiguna brotherkaygiyo waa lagu baahan yahay warnikaas dhamaanteen buu noo baahan yahay qofkii ku soo qori kara numberka umada u fududeyn kara ku soo qoro aniguna afkan ka sheegaya sidan ku soo qoro horta kow magaciisa aad ku soo qoraysaa liibaan مصطفى حسن وانا دي كعلنيا ليبان مصطفى حسن نمبر كاتكو قريسان انجليش بان دي كشاغي صومالي بان دي كشاغي فرانسيس نوان دي كشاغي انجليش هانو حنا قنايا 00 32 46 56 72 508 وانا دي كعلن 00 32 46 56 72 508 Soomaali ahaan wuxuu noqonayaa eber saddex labo afar lix shan lix toddobo labo shan eber sideed waan idinku celin waa eber saddex labo afar lix shan